dhakhtarkii weyne magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo isagu ahaa mid mayaamihii ugu dambeeyayba ku sugnaa xaalado aad u adag ayaa saakaaroonimadii waxa deeq caawimo daawooyin soo gaarsiiyay madaxda shirkadda Dahabshiil ee heer gobol iyo qaar ka mid ah qurbajoogta gobolka Togdheer waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay Dr. Aadan oo ka mid ah qurbajoogta gobolka Togdheer gudoomiyaha shirkadda Dahabshiil ee heer gobol Axmed Aadan Isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer iyo gudoomiyaha dhakhtarka magaalada Burco waxaan kala faraxsanahay inaan ku wareejiyo cusbaalka iyo agaasimaha iyo sibisada Isuduwaha in dawooyinkan oo laba qaybood ah qaybta hore waxa weeyaan 4 packet ama 8 boqos aad arkaysaan way ku jiraan dawooyinka cudurrada guud dawooyinka waxa financial xagga lacagta ka maalgeliyay Dahabshiil halkan waxa joogaya laba boqos kale ayna aragtaan mooyee waxa weeyaan waxa ku jira dawooyinka loogu talagalay dadka imika dadka maanka ka buka iyagu aniga si gaar ah u dalbaday lacag uma joogaan waa la soo dhownad gareeyay waa dawooyin qiimo leh waxay joogi karaan ilaa 6 bilood way ka keen karaan nooc walba way leeyihiin kuwi depression-ka kuwi psychosis-ka kuwi bipolar-ka marka in la dhaqaaleysto ee loo baahan yahay waa 6 kid iyo boqos gaar ah oo psychiatric hospital ma dheer lagu talagalay 6 kid sida doctorku noo sheegay waxay daweynaysaa 2400 oo beeshin anaguna haddaan Dahabshiil group nahay waa tan oo kale ahaan maysa tantii u dambeysay shirkaddu mar walba waxay diyaar u tahay inay ummadda wax ugu deeqdo oo ay wax ku soo celiso ay diyaar u tahay shirkadaha kalena sidaas in lagu baaqaynaa inay sidaas oo kale sameeyaan dhakhtarka aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa deeqdaa uu soo gaarsiiyay ka soo qaaday Dahabshiil group oo ay bixiyeen qolada Dahabshiil aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa cusbaalkuna aad iyo aad ugu baahan yahay marka anoo ka faa'iideysanaya miyaha waxaan leeyahay cusbaalka magaalada Burco waa cusbaal weyn waa cusbaal deyn badan dhisnaa waa cusbaal imika aan cid gacanta ku haynin dawladda mooy cid kale gacanta ka saani jirin shaqaalaha ka shaqeeya 300 qof ku leeyihiin runtii waxaan la baaxadaynaa sidii aan wax u sii lahayn dadka shaqeynaya mushaarkoodii waxa marka waxaan dadka muxsiniinta wala Soomaaliland ka codsanaynaa inay wixii dawaa iyo wixii kaalmo ku soo caawiyaan oo gacan weyn laga geysto cusbaalka oo dadka waxay wax lagu shaqeeyo service-ka inta badan qabanaa bilaash waxyaalaha reer dawooyinka xamarka laga tirayo wixii qaliye muhiim oo inta kale service-ka bilaash marka waxaan leenahay dee lagu soo wixii kaalmo aad baa ugu baahan cusbaal guddoonay Dr. Aadan iyo Dahabshiil group dawadan qiimaha iyo qaayaha leh ilaahayna ha ku shaafiyo dadka loo soo diray wana mahadsantihiin dadka reer Toronto markii 3 bilood ugu dambeeyay waa markii labaad ee Toronto ay alaab nooga timaado Zakariya Cabdiraxmaan Ibrahim television-ka caalamiga ee Somaliland magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.